nin weyn maxaa la jiri mulk wadkiis way yaqaana wadkiis dilla way yaqaana barnaamijkan asagoona idin soo gaarin wasiyo badan igu soo gaaray oo aan dhibsanayo oo aan fahmi karo noocan in wax u dhici doonaan meeshan dagaal baa ka dhacay dagaal siyaasadeed buu ahaa dagaalkan dagaal siyaasadeed waaye asaga naftiisana macna fara badan aan lahayn barnaamijkan kaleeto oo gaarka ah oo la qodqodahayo oo xumaan ku imaan karto dagaal suuqa isku bedeli kara hala joojiyo qof daalim ah dhinac kasta waa ka yimaado ama taan u fadhina ha ahaato ama tu kaloo adduun baa la joogay dhici karta ahaatee oo xumaan inuu ka shaqeeyo rabo oo xumaantiisaas aan ku gacan siinayno oon eehi dhahayno oon ka dhegaysanayno ma jirto qof nabadiisa miiska soo saarayna horta waliba adinkaad waxaa laga inaa walaacsan tihiin oo dadkii aqoon laadihiin oo boqol falaarood ana xamar joog kolba waraa laga soo diray xagga la aadi kolba boqol falaarood kolba magac baa luqi taas shirkan ka weynaa u qabsanaynaa waa isku imaanaynaa ilaahay idinkiis warbixin waafi ah oo qof kasta uu fahmi karo oo saacado dheer siinay waqtiga iyo dadka lala hadlaayana intaan ay ka badan yihiin waan qaadanaynaa waxna waxa waaye xaaladda ay ku jirteen oo xamar annagu joogno dhacdooyinka dhacay ahaa qaarna annagu hadda joogno dhacday mid wiilka hadda xabadda laga daba riday oo korneelku ka hadlayo ma dheeraa jiro habeen hore daraad galab bay dhacday oo mashaqada ahay oo afka aad qabateen oo aad ku dhex jirteen oo adinkoo arrin hore u xalliyey caqabada ahaa oo xal laga aaday haddana kuwo kale ay dhaceen arrintaas waa ka xunahay saa uga xuntihiin wax inay dhacaan laaciq ahayd oo habboonaana ma ahayn laakiin wax kastoo dhacaya wax kaa horeeya oo qadar oo jirto waay waa isoo waceen waana la soo wacahayeen raggii halkan joogay ha u wacitaan badnaadeen maamulkii aan meesha uga tagnay gudoomiyaha iyo ninka la yiraahdo deris labadaas nin baa inta badan arrintan ilaamaha kaloo amnigii saraakiishii la joogtay kusoo aruurinayeen ayakaa codkiina iyo codka ayaka ay qabaan ba nalahaa arrimahaas markay dhaceen idin imaanaan damacnay safar baan soo galnay aniga korneel aadan ilaahay ma qadarin maalin jimca ah saa xasuusto markaan marayna afgooye baan diyaaraddii aan wadanay cillad gashay waxay noqotay marka inaan meeshii aan taagnayn oo helicopter ahayd aan ku degno oo dhulka ahayd kadib markii aan fahanay cilladdii jirtayna oo beeloodyada noo sharaxeen aan dib u noqono muqdisho ku noqono dad badan baa waxay ka qayliyeen war haddaa marba dhul tagteen maxaa haddana ayada isii saaray laakiin aadaa u naf jeclayna ani aadanba inaan sii noolaanana waa rabnay beeloodyadii baa la tashanay oo waxaa noo soo baxday in diyaaradda muqdisho ay ku noqon karto laakiin safar dheer oo geda aanu kusoo aadi karin waxaan sii joognay 16 beri miya 17 beri oo kaleetaan dib u sii joognay oo sugaynay magaaladan elboor male saan wada ognahay elboor kale intii laga soo dego dhaqso lagu imaan karo oo cadow laga badbaadayana ma jiro in aan sugno diyaaradda aydeed inay la cillad bixiyo ina keento wallahi alxamdu walmana waa la cillad bixiyo wayna keentay maalinkaas aan soo bixinay wixii aan u soo bixinay waxay waxa idin hayay oo idin ku dhacay oo xanuunka ah oo aad gacmaha ka haysaan inaa idin kugu imaano oo wixii tabartanada ah ama aan goyno aan xalkeeda in kala qayb qaadano waa idinku ammaanayaa dhabtii maamulka iyo odayaashaba iyo ganacsatadaba way shaqeeyeen way dadaaleen dadkii balaxa u deganaa inta badanna nooc kastoo ay yihiin degmadan waxaa gaar u ah maamulkeeda iyo odayaasheeda iyo ganacsatada inta badan dad kaloo Soomaaliyeed waa degan yihiin laakiin beesha sidaa inta meel iskugu timaado inta badan beesha sidaa waa xaaladihii aad afqabateen iyo sidii aad u maareyseen waa ku mahadsantihiin wixii annagu aan u nimidno waxaa waaye ayadii inaan xoojino inaanan neefinin in dhiiga cusub aan ku shubno barnaamijkaas aad ka shaqayseen oo sulaxa ah ood xalka u aragteen inaanan qofna cadaalad darre aan ka samaynin qofna aan u exanin mid waa ciidan aan dhihin qof kasto
wixii dembi oo asaga uu leeyahayna aan horkeenno kii adinku aan qaban weydeenna aan qabanno wixii aan awoodno oo aan gaari karno dhan inaan samayno barnaamijkaas intii aan joognay waas dhabtii intii aan kala maqnaa waxaa kaloo aad ii soo wacahayay labadii beelood oo ehelka ahayd oo barnaamijkaas dhacdooyinkaas dhacay oo beesha side iyo maamulka carradan ka jiray ilaamihii amnigaba ay xaaladdaas u taagnaayeen beel ka mid a odayaasheedii waa dhammaan isoo wada wacahayay beesh faqa yaquub bay ahayd culummadii iyo odayaashii iyo waxgaradkii aa wada taqaanaan oo intii adinka aad la kulanteen ah baa isoo wacayso arrintaas aad ka hadlaysaan ood u soo dhiibteen oo sidoo u dhiibo ugu fadhiyey bay annaka nagala xajoonayeen oo nagala hadlayeen ilaa arrintaas baan u baahannahay xalkeeda sida loo arko dadkii deegaanka deganaa u arkay oo maamulkii iyo odayaashii iyo culummadii u arkeen baan u baahannahay in loo fuliyo oo noola fulisaan sheekh xasan oo loo turjumayo telefoonkoona maqlayna codkaan leeyahay ka mid ah dadkii ila hadlayay dhabtii waxaa taas ku tusinaysaa marka qofku si gaara wax u wato male haddii marka beeshii wax loo hayay oo la kala hadasheen arrintaas iyada ah beeshii kalena ay aqbashay tanna furo ay ahayd hawshan in la bilaabo ay odayaasheedii iyo culummadeedii iyo waxgaradkeedii ka hadlahayaan idinkana aad ka hadlaysaan annagina ayadii baan idinkala hadlaynaa in la qabanaynaa ilaah idinkiis wax kaloo kala aragti aan ka nahay bilkuliyaba ma jirto qof daalim ah dhinac kastaba ha ka yimaado ama taan u fadhina ha ahaato ama tu kaloo adduun baa la joogaa ay dhici karta ahaatee oo xumaan inuu ka shaqeeyo rabo oo xumaantiisaas aan ku gacan siinayno oon ihidhahayno oon ka dhagaysanaynana ma jirto meeshaan dagaal baa ka dhacay dagaal siyaasadeed buu ahaa dagaalka siyaasadeed oo dhacay fidno kalaa isbedeshay waa aragnaa oo waxaan ka xunnahay suu ku yimid sababtu maxay ahayd qaabkee wax u dhaceen waa wax dee qof kastoo reer buulaxa uu ka dharagsan yahay nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiis baa jiro oo yiri alfidnatu naa'iman cala allahu man istayqadaha fidnadu way hurdaa allahna calada qofka kiciyo hurdo ka kiciyo meeshaan siyaasad aniga markastoon hadlaayo ayadoo xabad igu socoto oo aan xeradaas joogo magaaladaana raggii ay xabadda nagu wada ay haystaan miidiya markaan ka hadlaya aan dagaal doqomeed ama siyaasad doqomeed aan ku sheegaya magaalada baad ka socotay magaaladan oo ka dhacday oo nasiib darro ah oo dad isdilaayo waxay isku dilayaan aan la aqoonin oo wada dhashay oo wax hataa aad igu dilaysid ii sheeg waxa aan isku dilayna asirtu waxa isku dilayno kala wadano aan fahanna ah baa jiray oo ka dhacay ayadii baa la qaribay kullay ilaahay wuxuu leeyahay idaa qultum fa'dilu walaw kaana daa qurba haddaa hadlaysid hadalka cadaaladka qaraabo midda kugu dhow ha ahaatee ciddaa ku markhaati furaysid ayadoo aan heerkan soo gaarin waxaa la yidhi qof nin weyn maxaa la dhihi jiray mulkumeedkiisa waa yaqaanaa wadkiis dilla waa yaqaanaa barnaamijkan asagoona idin soo gaarin wasiyo badan igu soo gaaray oo aan dhibsanayo oo aan fahmi karo noocan inay wax u dhici doonaan waxaan damcay ka ila joogana inaan la hadlo ka iga maqana aan la hadlo dadkaan la hadlay caalishiraha ka mid ahaa oo islaha aragti ahaan mogtahay adigu dadka ayaka oo isku aragti ah haddana waxbaa la isdheeriyo ilaahay bini'aadanku ma simin waxaa ka hadlaysa qayb wax ka fahmi karaan lahaa dagaalkan dagaal siyaasadeed waaye asaga naftiisaana macno fara badan aan lahayn barnaamijkan kaleeto oo gaarka ah oo la qodqodahayo oo xumaan ku imaan karto oo dagaal suka isku bedeli kara hala joojiyo markaas dhacdooyin yar oo dhadhacayo ba ii muuqanaya iyo telefoonno rag gaar ah isku didirahayaan oo labadan beelood ah oo labada dhinac oo isku hanjabaya ayagoo isla joogin waaba isdilaysaan qori waa isku haystaan telefoon qof u soo dirto muxuu macnaha yeelan karaa macnaha uu yeelan karo male adigu baa calooshaada qofka tusaayo waxaa qabtid kan iyo midka la joogana wax ay ku kala yihiin male marka telefoonka aanan hebel iyo hebel iyo hebel loo direynin oo hebel iyo hebel isku diraayaan macnihiisu dagaal qabiil buu isku bedeli doonaa hala joojiyaa ka hadlaya markaas barnaamijkaas ma soo gaarin adinka dhacdooyin kala dhacay xilli dagaal maalinkii balad xaawo magaaladan gudaheeda intaan la qabanin ka hor subaxii hore dagaalka dhacay nin dhintay tuula amiin nin ku dhintay halkan nin soo cali barre la socday barnaamijkaas saacadaas wixii ka dambeeyay gacantu ka baxay